Hi Mystery dib loo soo koobay maanta waxaan rabaa inaan sharaxo filim riwaayado jacayl Maraykan ah oo lagu magacaabo Ashback Spoilers horay u fiirso oo taxadar waad og tahay sababta aad u riixday muuqaalkan. Jilaaga filimka waa Ben waa wiil wejigiisa 25 jir ah oo had iyo jeer ah roonaanta iyo naxariista dadka kale mid wuxuu u qaadan lahaa inuu yahay saaxiibka ku habboon laakiin arrimuhu waa ka soo horjeeda saxda ah. Ben maahan dilaal taxane ah laakiin wuxuu awood u leeyahay inuu waqti qaboojiyo oo uu sameeyo wax kasta oo uu rabo. Dabcan wuxuu u adeegsadaa tan inuu dumarka ka xayuubiyo oo uu fuliyo dhaqdhaqaaqa uu ugu jecel yahay. Rinjiyeynta haddii ay ahaan lahayd waddada supermarketka ama xitaa filimada, Ben wuxuu qaboojiyaa gabdhaha kulul wuxuuna sameeyaa sawiradooda qaawan. Mar walba sidan ma ahayn. Inkastoo Ben uu ahaa nin caadi ah, si la mid ah dhammaanteen wuxuu lahaa saaxiib daryeel iyo mustaqbal rajo leh, wuxuuna keliya ku riyooday rinjiyeynta dumarka qaawan kadib markii filimkan uu soo ifbaxay 5 usbuuc ka hor halkaas oo ay wax walba khaldameen. Ben ayaa la arkay isagoo muran la leh saaxiibtiis Susie oo wacday waxaan ahay qof guuldaraystay. Markii uu ku filan yahay inuu kala tago iyada, taasina waxay ka sii cadhaysiisay Susie xitaa in ka badan ayay bilowday inay walxaha ku tuurto isaga oo waqtigan wax walba waxay u beddelaan dhaqdhaqaaq gaabis ah. Ben kadib kala goy Susie si degdeg ah ayuu u dhaqaaqay oo wuxuu helay Solace iyo nin kale. Dabadeed waxa uu si wada jir ah ugu fiirsadaa maqaaxida kuliyadda waxaana uu noqdaa mid wareersan si uu naftiisa u mashquuliyo. Waxa uu ku biiray fasalada fanka tan iyo markii uu Ben waxa uu xiisaynayay samaynta sawirada ilaa yaraantiisii. Waxa uu si aan dadaal lahayn u sameeyaa sawiro qurux badan, taas oo ka yaabisay xataa macalinka Ben. Waxa uu ma jeceshay in aanu soo badino filimada noocan ah.